السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wax ka bedelan wixii aan idin soo diri jiray fariimihii aan idin soo diri jiray wax ka bedelan way waxaan ka hadlayo. Soomaalidu waxay ku mahmaada ay dhaaftay geeska qabo. Macnaheedu waxa weeye markay caana male gaadho waxay noqonaysaa inaad fariinta kama dambaysta ah dirta ayay noqonaysaa. fariinta kama dambaysta waxay tahay arintii mudug ka dhacday iyo maleeshiyadii uu ina qaydii soo diray oo aan dhihi kara macnaha carqalad xagga dhaqaalaha ah iyo carqalad xagga nabadgelyada iyo horumarka ah gumaad lagu sameeyay baan dhihi karaa. saaka Soomaaliya uma baahna in meel la beleleqaysto iyo in maleeshiyo la isu soo diro oo la carqaladeeyo nabadgelyada bulshada Soomaaliyeed oo isla degan in nabadgelyadooda la carqaladeeyo maanta Soomaaliya ma qaadi karto wax la aqbali karana maaha. waxaan u sheegayaa marka Puntland waxaan la hadlayaa dawladda Puntland haddii ay tahay golaha fulinta iyo haddii ay tahay golaha sharci dejinta adinka ayaa damaano qaaday bulshada reer Puntland cir iyo dhul iyo badba in aad nabadgelyadooda dhowrtaan. kol hadday gacan ka hadal gaadhay waxaanu idin faraynaa annagoo bulshada reer Puntland in xadka la xidho. waa in xadka nabadgelyadeeda la dhowro way la xidho. markaan ku leeyahay baa mushtarkiya dadka isdhex maraya oo rayadka ah kama hadlayne waxaynu ka hadlaynaa in la sugo nabadgelyada oo xadka nabadgelyadeeda la sugo oo taaka kamida dhulka Puntland inaanan inta la iska soo galo aanan la fadhataysan nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed ee reer Puntland. marka waxaan farayaa dawladda farayaa weeyo ma codsanayaa ma because dawladdu waa shaqaale weeyo shaqaalaha reer Puntland weeyo waa inaad si degdega amar degdega looga soo dejiyo xadka galmudug iyo Puntland u dhaxeeyo in nabadgelyadiisa la sugo weeyo. mar dambe haddii ficil noocaas oo kala ay dhacaan arintaas ayada bulshadu waxay diyaar u tahay in ay tala fara ka baxdo oo aanu annagu isdifaacno ayay noqonaysaa. mana doonayno inay meesha gaadho inay halkaa gaadhana ma doonayno. marka waxaanu idin faraynaa inaad nabadgelyada reer Puntland la dhowro ayaanu faraynaa dawladda Puntland oo xadka la ogaado geeska gees cir iyo dhul iyo badba in bulshada reer Puntland nabad ay ku seexato carruurta iskuulaadaan jidadka la sameeyo ceelal la qodo dadku lugeeyaan waxbarasho iyo wax kasta oo horumara dadku ayagoo qoryo wadan inaanu annagu horumar samayno waa ballantayadii adinkuna aadna ilaalisaan soo madan garan. haddii aadnan ilaalinaynin oo annaga nala fadhataysanayo soo marka qoryaha iyaga inaan qaadano ma marka inaan qoryaha iyaga qaadano oon iska dhicino soo maha marka sidaas miyaa marka ma sidaasay Soomaaliya maanta maraysaa waa wax qalada wey. waxaan farayaa galmudug shacuubta degan lama hadlayo maamulka iyo waxaas ma ah shacuubta galmudug qaybta mudug galmudug qaybta mudug ummadda degan oo salaadiinta ah oo waxgaradka ah iyo shacabka ummadda aan walaalaha nahay oo garanaya xaqiiqda dhabta ah ee dadka ka dhaxaysa garanaya haddii maamulkiina aad wax u sheegi waydiin oo aad qaban waydiin dembigaasi waa dembi aad wada qaybsan doontaan wey. run baan idin sheegaynaa maxaa yeelay dantayadu waa isku wada dan baanu wada leenahay. dantayadu nabadgelyo wey. maanta Soomaaliya xabad iyo farataagtaag iyo uma baahna iyo maleeshiya in la isu soo diro. nabadgelyada hala sugo
nabadgelyada hala sugo oo hala sugo sidii aad ku sugi lahaydeen haddaad maamulkiina aad macnaha wax u sheegaysaan waa wax idinka idin yaalla wey laakiin anagu waxaan idin sheegay oo xaqiiqa bulshada reer puntland waxay idin sheegtay oonu idinkula hadlaynaa ilma adeerayaalow bii'adatan bii'a nabadgelyo u baahan weeye saacaddii wax la bilileeqaysanayay way dhammaatay assalaamu calaykum